Al-Azhar KJ Primary School oo kamid ah dugsiyada loogu jecel yahay magaaladani Boorama ayaa maamulka sare ee dugsigaasi Dr. Cabdirashiid Xasan Maxamed ayaa waxa uu ka warbixiyay waxyaabaha dugsiga Al-Azhar uu kaga duwan yahay dugsiyada kale ee magaaladani Boorama isagoona sheegay in lagu baran doono duruus Mareykan iyo sidoo kale waliba Islaamig kuwaasi oo kor loogu qaadayo tayada waxbarasho ee ardayda yaryar ee wax ka barta dugsigaasi dugsiga Al-Azhar KJ Primary School sidoo kale waxa uu ka mid yahay dugsiyada dhanka tayada waxbarashada ugu fiican guud ahaanba magaaladani Boorama iskuulkan hadii aan wax yar ka sheekeeyo ama aan ka hadlo waxa aan ugu talagalay waxa weeye iskuulkan iskuul aan ugu talagalay inuu ka duwanaado iskuulaadka kale oo magaalada ka jira iskuulaad badan baa magaalada ku yaala marka maxaan soo kordhinay wixii iskuulaadka kale ay dhigayeen ama meesha lagu hayay wax la mid ah haddaan keeno su-aasha jawaabteeda waxay noqonaysaa inaan la nimaano wax ka gedsan oo quality marka dhinac kasta laga eego hadday noqoto buugta wax laga dhigayo haddii ay noqoto macallimiinta wax dhigaysa haddii ay noqoto agabka ama equipment-ka ama materials-ka loo isticmaalayo sida kindergarten-ka oo ugu talagalay inay helaan meel ay ku ciyaaraan playground leh sliding-ka baalaan ay iska slide garanayaan leh ma ay handle garayn karaan intay aroortii galaan 7:45 class inay 12 ama kooda ka soo baxaan oo intaas oo dhan ay maaragtay casharo dawr loo qabto marka waxaan isku daynaa inaan helo meel ay ciyaalkaasi ku ciyaaraan oo agabkeena aan already order garaynay China laga order gareeyay ay furdada berber ku soo jiraan inta waxa dheer inaanu wax ka qabano oo ugu muhiimsanaa buugta sida halkan kulligood ku aragtaan waa American Core ama wax loo yaqaano standardka Mareykanka wax laga dhigo haddii ay noqoto math haddii ay noqoto English iyo iyadoo ku dul daray Islamic study oo globally iskuulaadka Islaamku leeyahay laga dhigo waxa ka furan adduunka meel walba iskuulaad Malaysia Indonesia Mareykanka Canada UK Germany wherever aad tagto iskuulaad muslimaad helaysaa marka buugta caadiga adduunka laga dhigo oo ku base garaysan diinta Islaamka islamarkaana dad Islaamiga oo scholars ay buugtayada qoreen waxaan kaloo aan rabaa inaan u sheego dadka reer Boorame marka hore social study waxa la yiraahdo oo halkan laga dhigaa waa inaan dhignaa wax kasta oo dawladdu nooga baahan tahay inaan dhigno inta waxaan ku sii duldareynaa inaan baro gobolka ay joogaan historygiisa taariikhdiisa waxyaabaha caanka ku yahay hadal qadarkeeda leeyahay marka hadda ilmihi weynaado ama high school dhigto ama uu galo jaamacad ayuu wuxuu baran doonaa waxa loo yaqaan war civilization-ka iyo maartay dagaalka labaad adduunka iyo dagaalka koowaad adduunka iyo maartay Hiroshima iyo atoombanka ugu horeeyay laakiin waxaan barafad garaynay anagu climate-ka Boorame weather-ka Boorame xilli bay leedahay roob goorma yimaada bilaheeb yimaada weather-ku sidee uu dhacaa sidee isu bedel taas waa taa inta waxaan noo sidii haddana wax yar dib ugu laabto dhinaca Islamic study-ga iyaalka waxaan baraa ducooyinka waxaa la baraa carabiga waxaa la baraa qiraa'adii quraanka caadiga ah qof walba age-kiisa iyo da'diisa meesha jooga waxaan ka qaadnaa wax loo yaqaan placement test ama test yar oo quiz oo lagu tijaabinayo in uu ku fit garoobi karo galaaska ama la qabsan karo galaaskaas xagga Ingiriiska hadda wax yar dib ugu laabto oo the most important thing ama shayga ugu muhiimsan waxa weeye inaan foundation ama base ka soo dhisno number 1 school kan inaan ka soo saaro arday mustaqbalka la tartanta ama challenge la gasha ardayda jaamacadaha adduunka marka la apply garanayo Harvard Yale Stanford Cambridge Oxford jaamacadaha adduunka caanka ah ardaydii bari la jaan qaadi lahayd halkan iyagoo joogta computer-kooda galaan ay marka apply garanayaan SAT-gooda iyo TOEFL test iyo walaal ay ku galayaan dhanka kale qaar kamid ah ardayda wax ka barta dugsigaasi oo soo bandhigay qayb kamid ah xirfadihii waxbarasho ee lagu baray gudaha dugsigaasi ayaa waxay sheegeen mubarak lana fi ma rasaqna wa khina alaban nar Allahu akbar ilaha wayn wahida ilaha siru shaygan ayalaha Quran
goats over a river. There was a very narrow bridge. One day a goat was crossing this bridge. Just at the middle of the bridge he met another goat. There was no room for them to pass.